السلام عليكم أصحابتي وحنا إذا صحابتي قصوا برتقولي وقبلني ما عندي لا إن شاء الله لأنتي ربالة جنة فردوسة أجد كان إن شاء الله لما أنتي دتك صحابتي قصوا برتقولي يقولي وقبلني ما دتك وري للجوجل هذيك نستوى كل إنك صباح تصبح وأنا أكثر كل صباح يتهاي برقاء دتك قلبتها قلب ولا دتك من ترير ما كان يرير كنا دينهم هاي ملاينا هبين إن شاء الله بإذن الله الكريم قول يقبلني ما إذا رجعنا الصحابي لما أنتين الصحابة يقول على الصحابة وريله جوكتبه قول استعين الله إن شاء الله بإذن الله الكريم لما أنتين كل يقبلني ما إذا الله هاي الصحابي وعايد الله يسوع دواذا إن شاء الله وعايد الله يا أصحابي لأنتنا بروا والله بالله دتك يوصل بير أما دتك يعني محل سكراب كسيه أصحابتك الله يسوع سكراب كسيه محايا خوف والبؤتره هذه الشارع يسمى هذا المعميع وكوجا لكن أنا محن كوجا أصحابتي إذا دتك على شورتك إنك قلبي في عينهن أنا وجه إن شاء الله قولي يقبلني ما إذا رجينا بالأصحابتي ذاي أصلا فينا دتك اللي بلاياش مساكين تا هرت أصحابي أدون كان إن إلهي لقى عبصد وحكا في عالملهم محايا إلهي قف صومالي ومسلم الله من بغير حق الإسكال يدلو حتى قف قال حتى إلا يدلو ما بنانا محايا دين الإسلام هو نستيح هو الله نستيحيا لكن قف ولالك ومسلم كله أو صومالي كله إنقذ بغير حق إنت الإسكال يدلو الإسكال فكرو والله أنا واقع حماضة علوش أي هرتمر كارك قف laga garday wadanka muxuu la degi lahayaa wadanka dhibaatadana ka jirta qof inta aan la arkaynin oo maxay ahayd aan loo jeedin ayaa ka khatar badan kuwan marka Soomaaliyeed duceeyada wadankeeda ilaa walaal nabad ma oga dhigo wallahi billahi wadanka wuxuu la degi lahayaa wadadka masaakiinta uqbada laga gala balance la fiirsan waxay wada waayeel oo hadana intaas lagu weynaay ka war subhanallah wallahi uqbo waatan لا يا نوني واحد الكف كنت دباتيناي حق الله هادو سانو قبلين الله كقبت مسلوكي هاي وحين لا قبتان وانا ارسن كرنا لكن شرعي كان الى لكن waxaan noqonay lagu tuntayaal inuu gaas cadaalad haday jirtaa la soo dhiciyo wixii dilkiisa ninka dilay arabaani waxaan ku suganahay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gurigan aan hadda ku suganahay waliba dhankayga midig qolka ku yaala waxa ku jira meydka Allah u naxariistay wiil da'diisa lagu qiyaasay 15 sano kaasoo lagu magacaabay Cabdifataax Maxamed isla markaana reerka murugada iyo xanuunka u yaala waxa kala weyn meydka ilaa hadda guriga u dhex yaala ee aan helin cadaalad waxay xuseen inay tageen saldhigga degmada Wadajir ilaa xarunta dambi baarista CID-da jawaabta la soo siiyay ay noqotay in aan waxba laga qaban karin arinta markaasi haysata sargaalka markaasi dilay wiilkan ay magaciisa reerku inoogu sheegeen yaa yuuray oo markaasi xaafadan caanka ah waxaanu ka tirsan yahay booliiska Soomaaliyeed xalay ay ahayd markii marxuumka la dilay ilaa waqtigan reerkiisu waxay meedka guriga ugu haysteen oo ay raadinayeen cadaalad gacanna lagu soo dhigo ninkii falkaasi geystay hase yeeshee ma dhicin taas saldhiggii degmada ilaa CID-da ay cadaalad u doonteen way iska idintireen xaaladda meesha ka taagneed iyo xanuunka haysta qoyskani dantiyar ee wiilkooda la dhaafiyay sargaalkii geystay arintan waa mid dhex mushaaxaya magaalada ismoogeysiinaya falka foosho xun uu geystay waliba reerku ugu sii hanjabayo inaan dhacdadani aan la soo hadal qaadin amaba aan laga hadlin isagoo dhibanayaasha waqti walba uu hormaro guryahooda hortiis ayaguna awood buuxda aysan u lahayn inay iska qabtaan waa sida ay noo sheegeen taas oo ay ku sababeeyeen inay dhowrayaan sharciga waa arin naxdin iyo murugadeeda leh dawladda ay u cadaalad doonteen kama aysan helin cadaalad sax ah gurigiisa dhabta ayaa loo soo galbiyay oo danta qoysku waxay ku kalifatay inay meedkooda iska aastaan halkan aan ku sugannahay duleedka Jazeera ayaa lagu aasay marxuum Cabdifataax Maxamed Cali بنت محمد عبد الله وهو يضل شيء مرحوم كلا دليه وانا أمول يصيدوا كلا أبيه دليه ويلكاسي ولغو مقعبو محمد علي طوري دولة فدرال كاية كعود سديني عدالة دلهور كينا قعن كوديقليه دليه ويلكودا waxaan rabaa inaa xaqayga la soo dhaciyo cunuga cadaalad ma jirto cunuga
ninka dili waxaan rabaa cadaaladnimada in cadaalada loogu soo maro si islaamka loogu soo maro in loogu soo maro rabaa cunugaas cadaalad haday jirto halay soo dhiciyo wixii dilkiisa ninka dili aan rabaa aniga waxaan aabaa cunuga laga dilay waxaana dishay gacanka xaq daran mid kale waxaan ka codsanaynaa dawladda inay noo soo qabato ninkaas cunuga naga dili meel cidluna taagan yahay waafaanteena mala taliyaha degmada Wadajir aan u tagnay waan iska madadaaliyay waxaas noo qabanay mala ninkii wax naga dilin banaan cidluna taagan horteena taagan ilaa hadda dhinaca kale ehelkoo hadlay waxay dalbadeen in arrintan aan sidan loogu gudbin muhiimna ay tahay in wax laga qabto ninkii aan la xiro oo ninkii ag maraayo gudoomiya u tagnay wax noo xiraan wayne si ay dhiidaan tagnay wax noo soo qabtay dhii waa soo sawireen waraaqa idin siinayna ideen unugeena waxaan rabnaa ninkii soo dilay anagana oo noo la dila aan u baahanaa ka dilin yaanyureeyal mura maanta laakas anaga jareer aan nahay juguntan oo la celiyaa juguntan nin maanta na garab ma siihay ma jirto ninka taliyaha waa ogsiyaa ninka diyaanyureeyal yira xalana waxa uu nagu hinjimaaday wariya meedkaas ma qaadi kartiin wiil shay aniga meedka soo qaadahay waxay yireen ma soo qaadi kartid kii soo qaadan xabadan ku dhifaa shalay waqtigan oo kale marxuumku waxa uu ahaa mid shaacabaya kuna faraxsanaa la jirka saaxiibadiis iyo asxaabe wallahi mararka qaarkood lina soo dhaafto ilaahay laftiisu dulmiga ka xarima iga raali noqdo waa qeyrooda ilaahay naftiisa ayaa dulmiga ka xarima inaan isdulmino waa xaaraan ilaahay ama nagala ballamay inaan isdulminin wuxuu dulmiga nafteeda ayaan ka xarima adinkana ha isdulminina marka in la isdulmiyo caruur yar oo u bixiyo dalka ah la iska laayo biqayr xaq lagu laayo wallahi wax laga xumaado ninkii biri wadanka ayaa difaacay dadka hadii la dhameeyo oo dadka la iska dilo sidii xoolihi camal war dhiig islaameed inaad daadisid waa xaaraan ilaahay ayaa ka xarimay war joojiya waxaad wadiin dado war ilaahay ka cabsado war ilaahay u noqdo subxaanallah malikul quduus لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وردتك إسكدايا هدول مننا وردتك إسكدايا ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ورددوا إلهي كعبصد إلهي ونقض إلهي ونقض وإلهي ونقض dadkan garabka siinayo adinkana ilaahay u noqdo oo ilaahay ummadda masaakiinta u hiiliyo war ummadda masaakiin war walaalka haduu dhiban yahana u hiili todobadiina la faray haduu daalin yahana xaq u sheeg ilaahay ayaa nafaraba walaalka daalin haduu yahana qofka la dulmi u hiili waxna la faro waay war rasuulkuna faray xaraam caleesh xaraam in wallahi billah mararka qaarkood waxa israahdaa Soomaalinimada uma ka baxdaa meelan uga baxa malsay waaba ka dhashay warooy hala iska daay dadka masaakiinta hala iska daay ilaahay ka laga cabso dadka masaakiinta hala daay dulmi waaye dulmi lagu wada laga daay dadka masaakiinta oo Soomaaliya oo kuma wade qof ka saar masaakiinta u dhiba aan ka qabana masaakiinta dadka masaakiinta dulmi waa la dulmiyo oo ilaahay waday dhahan wadankan ma hagaagay dadka masaakiinta aan ka qabana dadka قول يا جبناء يا رجال صاحبي أصحابتي وأقيروا ذي قالها للنقطة إن شاء الله بإذن الله كانوا قول يا جبناء إن رجينا لما أنت والله وأسكت قيروا قول يا جبناء إن رجينا صومالية عندك كان قرب سينا ولا علينا مساكين تولد المي إن شاء الله بإذن الله كريم وليست إن شاء الله وأخيرا سنة قالها للنقطة